إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله waxaan jecelahay maanta haddii rabbiidmo maadi inaan kelmadii ku saabsan masalo runtii soo noqnoqota masalo uga dhacda oo dhib badan muslimiinta dhexdeeda ka abuurta inaan waxay ka yidhaahdo. masaladaas waa masalo la yidhaahdo ikhtilaafu lmataalib, oo macnaheedu yahay laga wado masala bisha ramadaan haddii magaalo laga arko magaalooyinka kale ma ku sooliyaan, haddii dal laga arko dalka kale ma ku sooliyaan. arrinkaas ama bisha ramadaan markay dhammaato bisha shawaal oo kale labaduba khilaaf ka dhacda. intaanan u gudbin masalada sharci ahaan iyo adiladeeda diinta waxay ka qabto, waxyaalaha muhiimka waxaa ka mida ramadaan waa bil cibaada, weliba bilasha u fadliga badan bilaha labiyi tobanka bishaas waa fadliga badan oo cibaadada ah. waxaa waayada dambada soo batay inay isu bedesho bil siyaasadeed, inay isu bedesho barnaamij ka baxsan sidii diiniga ahayd, si ka baxsan in la isugu khilaafo. mararka qaarkood ay timaado ama maamulada laftigooda si maamul ahaan ha wax ka dhacdo, oo masalan dowlad goboleedka inuu yidhahdo dowlad goboleedka kale ku soolmeyno, ama xarakaadka ama masaa'il fikriga diiniga ah ee dadku isku khilaafsan yahay, kanaa suufiya, kanaa salafiya, kanaa tabliiqa, waxyaalaha noocaasa ay tahay iyada laftigeeda in la soo dhexgeliyo bishii cibaadada. waxyaalaha aan xusuusta waxaa ka mid ahaa mar ka mid ah taariikhdiina soo maray in ay puntland ka dhacday in magaalo ka mida magaalooyinka laga arkay, weliba xuduudda puntland ah. kadibna ay dhacday in maamulkii ay diideen oo ay dhaheen bishaas ee magaalada kusoo lumeeyey. kabacdi ay dhacday ninkii siyaasiyiintii magaaladaas ama degmadaas ka soo jeeday ee matalayay ama dowladda ugu jiray inay madaxweyne u yimaadaan oo ay dhahaan anagu markhaati ma gallamiya maxaana nala ku soo dhawaayey. waxaa dhacday magaalo ka mida magaalooyinka weliba puntland iyadana inay culummadii oo ishaysataa ay maamulka u tageen guddoomiyaha gobolka oo markaa yidhi farta taaga inta qabta bari waa soon, inta qabta soon ah. waxyaala noocaas marka waxay ku tusayaan inaysan shaqadan shaqa culummo weeye. culummada laftigeedu marka inay ka saaraan siyaasadda. waxaa dhacday oo anagana in qolooyinkaas ama madaahibtaas fikriga ah ee islaamiga ah qaar ka mid ah inay dhacday magaalo in laga sheegay bishii ramadaan. nin bay soo direen, gaarigii soo indeereen, waxay yidhaahdeen orada soo hub magaaladaas. ninkii waa yimid, magaaladii buu tegey, dadkii buu la kulmay, wuu hubiyey in bishii ay dhalatay. dabcan waxaan filayaa bil ramadaan bay ahayd, waxaa le bil waxay ahayd shawaal bay ahayd, ramadaan baa dhammaanay. way soo noqday ninkii, masaajidkii buu yimid, takbiirtii baa la qaaday. haddana qoladii masaajidka maamulaysay jalsay fadhiisatay, waxay isku qabsadeen, waxaa la joojiyey in dadkii waa la soomiyey iyadoo laga cararayo oo laleeyahay qole heblo baanu ku raac. arrimahaas markaad fiirisid bishii bil cibaaday ahayd, laakiin waxaad moodaa in xisaabo kale oo dad ka dhexeeyey ama qolooyin wadaadaha dhexdooda khilaafkoodii ka dhexeeyey in lagu saxayo, ama mararka qaarkood khilaafaad siyaasiya in lagu saxayo, inay kaba baxdayba oo shaygan masaladan diin ahaan muxuu yahay xukunka. intaa horta waa tanbiihinaya.
qodobka labaad oo aan usoo jeesta masalada sida la og yahay taariikhda islaamka weligeed ma dhicin in caalamul islaami uu hal mar wada soomay oo tawxiidul ahilla waxa la yidhahdo in bilahu ay isku mid noqdaan oo isku maalin la wada soomo ma dhicin yacni macluumaadkeedii lama hayo hadalkaasna ma aha hadal anigu aan idin waa hadal ay majaamicda fiqiga ee islaamiga ah ay ku diiwaan geliyeen fataawidooda qodobka muhiimka waxaa weeye oo isna saddexaad waxaa jira in wada ognahay in salaadaha aan isku waqti la tukan saacaddan haddaad dabacda inaad maraykanka la hadasho 8 saac way naga dambeeyaan haddaad dabacdo inaad wadamada bari naga xiga sida indonesia iyo maxaan ku idhahdaa wadamada noocaasa hindi dhulkaas dadka jira iyaguna waxay hadda u tahay habeen marka salaadaheenna caadiga ah waxaan ognahay inaan isku waqti tukan marka waxyaalaha aadka muhiimka u ah waxaa ka mid ah inaan fahamno iyaduna waa caamil kale oo aan cid khilaafi kartaa jirin ama qof muslima oo maanta diidi karaa ma jiro in dadka aan qoraxda isku waqti u soo aysan isku waqti u soo bixin oo lagu kala duwan yahay habeenka iyo maalinta caalamkuna yani qolo isku dhow qolo waxay isku khilaafsan qolo aad u kala fog in la kala yahay meel walba qof muslimaa jooga arrimaha muhiimka marka waxaa ka mid ah bishan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina amray inaanu ku soonno aragti kuna afurno aragti maadaama marka ay sidaas tahay oo amarku yahay sumu liru'yatihi wa aftaru liru'yatihi fain qudira calayhi fain qumma calaykum faqdiruu lahu oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam halkaas waxaa la yidhi war isha ku sooma ishana ku afur inta waa diir basiida qofka aad wax u yaqaan iyo qofka waxba aqoon iyo qofka saynisyahanka iyo qof odayga reer baadiyaha miyiga jooga kulligood isku si baa loogu adoonsaday arrinta marka muhiimka waxaa ka mid ah in ay tahay shareecadu ay ku xirtay waajibka bisha ramadaan waxay waajibaysaa markii lahaa culamadu marka waxay isku khilaafeen nabigu wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam idaa ra'aytum fasumuu wa idaa ra'aytumuuhu fa aftiruu haddii marka aad aragtaan sooma haddaad aragtaanna afura waxaa laga wadaa haddaad ramadaan aragtaanna sooma haddaad shawaal aragtaanna afura su-aasha muhiimka marka waxa weeye khitaabkan ah yaa loola jeedaa haddaad aragtaan sooma ma muslimiinta o dhan baa la sheegayaa mase dadka isku beledkaa baa la sheegayaa ma dadka isku maamul ku hees jiraa la sheegayaa ma dadka qoraxda isku mar u soo baxdaa la sheegayaa yaa la sheegayaa runtii culummadu khitaabkaasi waxuu ka mid yahay waxyaalaha keenay khilaafka masaladata yaa loola jeedaa dadka qaar waxay dadka dhahaya dadka oo dhan meel ka mid ah adduunka haddii laga arko qof kasta oo muslim waxaa waajib ku ah inuu soomo waxay leeyihiin hadalkan suumuuna amarkaan cidda la siinaya waa muslimiinta qof muslima hadduu arko oo qofkii muslimaha xogtaasi soo gaarto waajibay ku tahay inuu soomo taasay marka iskugu khilaafeen taas qola saasay tiri waxaa jira xadiis qurayb xadiis la yihahdo caan ah oo inuu shaam ka yimid madiina uu ugu yimid ibnu cabbaas uu waraysto uu yidhi bishii goormaad aragteen iyadoo la sooman yahay uu yidhi annagu jimcadii baan aragnay ibnu cabbaas wuxuu yidhi annagu maya sabtidii baan aragnay marka wuxuu yidhi qurayb jimcadii baan la arkay dadkao dhanna way ku afureen way ku soomeen mucaawiyana waa ku soomay markaasuu wuxuu yidhi maya annagu idinla afuri mayno waxaanu aragnay sabtidii ama inaan bisha aragno mooyaane oo bisha dhalata mooyaane soddonka yagaan dhamaystiranay marka wuxuuna ku daray sidaas ayaa rasuulkaana amray calayhi salaatu wasalaam xadiiskaanasi waa xadiis saxiix labadaa kelmadood marka ayaa waxaa ka dhashay khilaafka ah
qola waxay qabsatay hadalka ah ha lagu soomo aragti ha lagu afro aragti qoladaas waxay yidhaahdeen markii laga arko meel ama magaalo laga arko caalam islaami oo dhan ama caalamka oo dhan qof kasta oo muslim waajib ah qola kale waxay yidhaahdeen maya wixii isku madaalic ah ayaa ama qorax isku mar usoo baxdo ayaa wada soomaya halkaa marka waxaa ka soo baxay masaa'il dhowr madaalicda laftigeedii maxaa loola jeeda qole waxay yidhahdeen dadka wixii isku maamul ah hadda dowladda soomaaliya oo kale waa hal wadan oo hal calan leh hal maasanboor leh intaas way isla soomi kartaa qole waxay dhaheen wixii 2226 kilomitir isu jira inta gudaha 2200 magaalada maasar laga arkay hadday 2226 kilomitir ay ka yar kuu jirto waxaa waajib kugu ah inaad la socoto qolabo kale waxay dhaheen maysaa loolama jeedo waxaa loola jeedaa intii qoraxdu isku waqti usoo baxdo oo waxaa suurtagala wadamo kale fog inay qoraxdu isku mar usoo baxdo si kastaba ha ahaatee noocyada khilaafka ayaa marka masalada ku jira masaladan waxaa ka hadlay dad aada u tiro badan ama culimo tiro badan culimadii hore ee salafku way isku qabteen jamhuur ulculamaa oo imaam abu xaniifa iyo axmed ay ka mid yihiin waxay qaateen fikirka ah in haddii meel laga arko adduunka intiisa kale ay waajib ku tahay ciddii ogaata imaam shaafici iyo dad kale oo salafkii ka midna waxay qaateen in la tixgeliyo dadka wixii qoraxda isku madaalica oo xogtooda qoraxda isku mar usoo baxo waxaa ka hadlay masalada marka hay-atul kibaar culamaa baa ka hadlay waxaa ka hadlay majmac alfiqh alislaami bishani tawxiid ahilla buu ka hadlay waxaa ka hadlay almajmac alfiqh alislaami bishani camal biru'ya baa lagaga hadlay masaa-ishaasoo dhan culamo waaweyn iyo majaamicda islaamku waxay isku waafaqeen haddii aan nuxurka soo korno in la tixgeliyo kala duwanaanshaha iyo kala fogaanta dadka muslimiinta ama meelaha adduunka la kala joogo oo ay dhici karto aysan khasab ahayn meel haddii laga arko meel kale inuu ku soo culamada qaar waxay yidhahdeen haddii qaar ba waxay dhaheen makoo kale haddii laga arko inta kale waa ku raacaysa laakiin sida ay culamadu taqriiriyeen waxaa weeye barnaamijkan maadaama aysan dhicin in weligeed la isku waafaqay علماء الإسلام waxay soo majaamicdaas oo dhan iyo fuqahada waxay ku arooriyeen masalada tan in looga dambeeyo qof walba culimada meesha uu ku nool yahay culimada joogta iyaga ayaa qiimeyn kara iyaga ayaa go'aankooda la qaaday waxaa soo hartay waxaa dhacday xataa mararka qaarkood in rabiitul caalam islaami hay-ad ka socotay lajna ka socotay ama hay-ad ka socotay iyo waddanka singapore inay isku qabsadeen singapore waxay dhaheen waxaa lagu soomayaa xisaabta maadaama waddamadaas waa waddamo daruuro badan oon waxba la arkaynin hay-addii islaamiga ahaydna waxay yidhahdeen maya waxaa lagu soomayaa aragtida kabacdina majmac fiqh alislaami baa masaladooda dacwadoodii la keenay aakhirkiina waxaa la taqriiriyey oo majliska majmac alfiqh alislaami uu soo saaray in aragtida lagu soomayo aan xisaab lagu soomayo waxaa rabaa inaan kusoo khatimo masalada hal eray oo ah haddii waxaa jira dad ku nool meelo aan qoraxda iyo habeen ku kala saarnayn ama ay qoraxdu wax yar soo jeedayso ama aan in la arkaaba ay mustaxiil tahay meelahaas maxaa la sameynaya meelahaas laba ra'yi baa jira ra'yi wuxuu leeyahay maka laga qiyaas qaadanaya xataa maaha soonka keliya salaadaha laftigeeda waxay leeyihiin xilliga maka tukato xilliga maka soonka ay bisha aragto ay baa la qaadanaya ra'yi kalena wuxuu leeyahay maya magaalada ugu dhow meeshaa mushkiladu haysato ee habeenkii maalintu ama aysan kala saarnayn ama aan wax aad u yar qaar baa nus saac iyo hal saac iyo ay dhacdaa waxaa laga qiyaas qaadanayaa bay yidhaahdeen waddanka ugu dhow ee habeenkiisa iyo maalintiisu ay kala saaran yihiin
iyadana marka bisha ramadaan maxaa la samaynayaa maalinkii waddankaas uu bisha arko oo iclaamiyo ayaa la qaadanaya masalada marka waxaan jecelahay inaan kusoo gabagabayno dad waxaa jira sacuudi iskaga xiran oo odhanaya sacuudi baa laga arkay sacuudi wax gaara ma aha waxaan anugu garanaya tajrubadayda weliba sanadkii 1994 bay ahayd inay dhacday sacuudi intaan la soonnay in bishiiba la waayey oo ay nagu gaartay 31 marka sacuudigu waa adigoo kale waxaa kaloo la isweydiiyey haddii bisha cirka lagu arko oo microscope iyo waxyaalo noocaas inta lagu fiirsho cirka lagu arko laakiin dhulka haddii la istaaga aan la arkaynin iyada xukunkeeda buu noqonay annaga cirka lagalama dirin yani waxaa laga hadlay isha mujaradka haddaan lagu arag oo xilliga bishii markay qoraxdu dhacdo oo hawada dhankaa la fiirsho la arki waayo microscope cirka dhexdiisa ka arkay bishii lagu soo ribaayay iyadana waxaan kusoo gabagabaynayaa dhalinyaro badan iyo dad badan oo khilaaf badan ka abuura oo culimmada ku kalsoonaan waaya baa jira oo badan baa soomaalidu u badan tahay in lagu kalsoonaado culimmada meeshaas joogta culimmaduna dadaasho oo xogta laysu keeno oo haddii magaalada laga arko annaga dad muslimiin ah qof islaama hadduu yiraahdo bishii waa arkay magaalada dadka jooga iyo qaadiyaasha iyo culimmada meeshaas joogta ay ku qarcaan maamulku uu qaato in la qaato marka iyo qodobka ah dadku hadday isku wadan yihiin inay isla soomaan sababtoo ah dee dhib baa ka dhacaysa calaa kulli xaal khilaafkan waa khilaaf shadiid ah hadduu dhaco waxaa ka dhalanaysa laba qof oo gurigooda joogto qofba wax inuu ku qarco waxaana jirta qaacido muhiim ah dadka aad la nooshahay inaad khilaafto iyo inaad khilaafto dad aadan la noolayn oo kaa fog oo dareemaynba inaad khilaafsan tahay waxaa dhib badan inaad aad khilaafto dadka aad la nooshahay marka magaalada aad joogto culimmada joogta uga dambe bisha inay dhalatay iyo inaysan dhalan intaasaan jecel inaan kusoo gabagabeeyo wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu